Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa idin salaam walaalahayga meel walbo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada janalkayga. Halkaad igala socotaan waa Fahiimo Janal. Shalay oo taariikhdu ay ku beegneed 15 bisha labaad waxaa aroos aan caadi ahayn uu ka dhacay wadanka Morocco. Yaa isguursaday waaye su-aasha la isweydiinayo. Wiilkan oo ah wiil Soomaaliyeed ayaa waxa uu guursaday gabar u dhalatay wadanka Morocco. Wadanka Morocco ayaa wuxuu ka tirsan yahay qaaradda Afrika, inkasta oo dhaqankooda uu eg yahay dhaqan Carbeed ayaa haddana waxaa dhaqamadooda ka mid ah in qofka marka uu guursado geed u maleysid naxash qofka in lagu qaado oo 6 nin oo xoog badanna ay qofkii intay ku ridaan naxashka lagu wadwado oo dhowr lagu soo warwareejiyo si gabadha iyo wiilka isguursanayo loo dhaho dadkan waxay dhigteen arooska ugu cajiibsanaa ama arooska ugu qatarsanaa oo dhaqankooda weeyaan in qofka waxa u moodid naxash intii la saaro haddana lagu warwareejiyo oo goobta arooska uu ka dhacayo lagu soo warwareejiyo wiilka caruuska ah iyo gabadha caruusada ah. Geedkan moodid naxashka ayaa la qurxiyay oo waxaa moodaa in lagu sharaxay qalin iyo waxyaabo ka samaysan dahab. Muuqaal ahaan waxaa moodaa annaga inuu ka duwan yahay dhaqankeena oo Soomaalidu waxa ay samaystaan aroos caadi ah, baraambur iyo waxyaabo noocaas camal muusig, hase ahaatee kan waa uu ka duwan yahay. Wiilkan iyo gabadhan ayaa la sheegay xiriirkooda inuu in muddo soo wada jiitamayay, hase ahaatee shalay ay u hirgashay in ay dhigtaan arooska xafladda guurkooda. Maasha Allah, hambalyo ayaa leenahay. Wiilka iyo gabadha ayaa waxaa ka muuqato farxad aad u badan, waxa ayna ku ciyaarayaan geedkii la dul saaray oo 6 wiil ku dhawaad ay wadeen si u muujiyaan arooskooda, farxadiisa iyo guurkooda inuu si wanaagsan u dhacay. Maasha Allah, hambalyo leenahay. Run ahaantii hadda waxaa moodaa ajaanibka in ay aad ugu soo badanayaan iyo Soomaalida in isguursadaan haday ahaan lahayd Afrika, haday ahaan lahayd wadamanka kale in Soomaalida ee ajaanibta u bataan guurkooda. Ma ahan markii ugu horeysay oo gabar iyo wiil Soomaaliyeed oo gabar ajaanibi guursado ama gabar Soomaaliyeed ee wiil ajaanibi guursato. Maasha Allah, waxaa la isku waara hambalyo waxaa tihiin maasha Allah reer qoys cusub oo ku soo biiray qoysaska Soomaaliyeed miyaan dhahnaa mise qoysaska Marookaanka. Maasha Allah, hambalyo walaalkay iyo walaashay isku waara awlaad qeyr qabto oo baariyana kala hela. Waa mahadsantiin asxaabteyda sida wanaagsan ay ugu xiran tihiin. Sidaas iyo nabadgelyo. Fiidiyowga xigo inta ku kulmayno waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.